ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay inay fuliyeen howlgallo wadajir ah oo loo adeegsaday gantaalada balaastikada ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn droneska kaas oo lagu bartilmaameedsaday goobo militari oo Mareykanku ku leeyahay gobolka. Bayaan ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka ayaa lagu sheegay in weerarkan uu jawaab u yahay weeraro ay ku eedeeyeen Mareykanka inuu horay ugu fuliyay gudaha Iran. Sidoo kale waxay sheegeen in howlgalkani qayb ka yahay tallaabooyin lagu difaacayo madaxbannaanida iyo ammaanka qarankooda. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo hadda dowladda Mareykanka si rasmi ah uguma hadlin sheegashada Iran, mana jiro ilo madax bannaan oo xaqiijiyay in weerarkaasi dhacay ama cadeeyay khasaaraha iyo saameynta ka dhalatay. Wararka ayaa ku soo beegmaya xilli gobolka uu weli wajahayo xiisado amni, inkastoo dhowaan la sheegay in la gaaray heshiis lagu yareynayo colaadda u dhaxaysa Iran iyo dhinacyada Mareykanka iyo Israa'iil. Khubarada amniga ayaa tilmaamay in haddii la xaqiijiyo weerarka uu sii kordhin karo xiisadda Bariga Dhexe, islamarkaana uu saameyn ku yeelan karo isu socodka maraakiibta ganacsiga iyo shidaalka ee marinka Hormuz oo ah marin biyood ugu muhiimsan dhoofinta shidaalka caalamka. Dhanka kale, dowladaha gobolka ayaa sare u qaaday heegankooda amni iyadoo la adkeeyay difaacyada hawada ee saldhigyada ciidanka Mareykanka ee dalalka Khaliijka si looga hortago weeraro kale oo suuragal ah. Beesha caalamka ayaa iyaduna ku baaqday in dhammaan dhinacyadu muujiyaan isxakameyn si looga hortago in xiisaddu isu beddesho iska hor imaad ballaaran oo saameeya xasiloonida gobolka iyo dhaqaalaha dunida. Ilaa hadda ma jirto xaqiijin madax bannaan ama war rasmi ah oo ka soo baxay Mareykanka oo cadeynaya weerarkan ama khasaaraha la sheegay.